doorashada Jubbaland say u dhacayso dhowr jeer horena waan sheegnay waxay u dhacaysaa waa doorasho dadban maaha doorasho qof iyo cod maaha waa doorasho ay base u yihiin saldhig u yihiin odayaasha dhaqanku oo ay soo xuli doonaan hadii la yiraahdo xubnihii baarlamaanka kadib xubnaha baarlamaankuna gudoonkooda dooranaya gudoonkuna iyo markay xubnihii baarlamaanka oo iswataayna hadii la yiraahdo ay madaxweynihii dawlad goboleedka ay dooran doonaan waa doorasho noocaas u dhacaysa annaga waxa noo qabsoomay doorashadaas inay saa u dhacdo waxay u baahan tahay hawlo badan shaqo badan ka horeysa shaqadaas badan ee ka horeysa waxa weeye in qorshaheedii la dejiyo in maxaan ku dhahaa road map la sameeyo si u dhici lahayd la habeeyo taas ayaa ka hormarayso oo runtii wax fara badan oo isa saaran ah annagu marka waxaan sameynay qorshihiina waa dejinay road mapkiina waan sameynay shuruucdii ay u baahnayd doorashadaas na waa sameynay haddana waxaan maraynaa heer gabagaba oo ah inaan ku dhex jirnaba qaybtii ugu horeysay road mapkaas oo ah ama labaad taqriiban oo ah in la tashi aan kala sameyno bulshada reer Jubbaland hanaanka doorashada iyo sida ay u dhacayso marka intaas oo dhan waa soo sameynay meel fiican baan maraynaa hadda horta caqabada ugu weyn oo in hortaagan waxaan dhihi karnaa waqtigan ugu yar waa runtii waa caqabad waaye waqtigu aad buu u kooban yahay muddo aad u yar baan rabnaa inaan doorashada iyo qaybaheedaas aan hadda ka soo hadlayo dhan inaan ku qabanno hadii la yiraahdo marka taas waa caqabad baa la dhihi karaa laakiin ma aha caqabad naga hor istaagi karto doorashada inaan qabanno dib ma u dhici kartaa doorashadu annagu hadda sida kuma talagashan inay dib u dhacdo haddii ay nagu timaado waxyaabo keeni kara way dhici kartaa dib in loo dhigo yani maaragtay wax oo mustaxiil ma aha laakiin hadda annaga qorshaha nooguma jirto inaan dib u dhigno doorashada waxa annaga naga go'an inay xilligeeda ku dhacdo